ninkan aad meeshan ku aragtiin waa nin xogaa maskixiin xanuunsanaya laakiin haddaan ku dhaha ka waran wuxuu dhaamaa 10 nin oo meel iska fadhiya oo shaah cabaya oo qabyaalad ka sheekeynaya ninkan sida la sheegay wuxuu ahaa nin Mareykan ku nool shaqadiisuna waxay ahayd timajare dadka qaarna waxay leeyihiin taraagle laakiin 99% waxaan u maleynaa markaan wax sii raadiyay in uu timajare ahaa kadib ninkan qadar baa ku dhacay oo sida la sheegayo anagoo nuhun waxa la dhahay walaashii iyo walaalkii aamanaha waqti yar oo isku dhow geeriyooday sababta ayaa markaa xogaa keentay in uu isku yar dhaxyaaco oo macnaha ka tagay sidoo ahaa uu sidan hadda uu yahay noqdo laakiin mid la yaab kale waxa waaye intaan meel kale la eegin baba ninkan dharka uu xiran yahay waxa ka koreeya birahaas isaga samaystay qofka birahaas samayn karaya waa qof uu ilaahay aqal siiyay qofka biraha samayn karaya waa qof talent u leh waxaas manaha qof intuu iska soo kaco maanta uu meel geesh ka tago waxaan uu ninkan xiran yahay kale ma samayn karo oo wuxuu u baahan yahay ugu yaraan in uu xogaa farsamo yeesho marka ninkan waxa ugu horeysa ee manaha marka aragtid alqac ku siinayso waa birahaasina maskax bay u baahan yihiin in lagu sameeyo ninkan marka idin leeyahay 10 nin oo 30 jir ah oo meel maqaxisha ka cabaysa oo sugaysa inay waalidkooda ama walaalahooda lacag soo diraan ayuu dhaamaa waxaan ka wadaa bal hal mar dhageyso ninkan suu u hadlay manaha qaabka uu hadlayo lama arkin adduunyada dadka iska soo toosaan maqaxiskooda fariisanaya qadadii ka tagaya soo laabanaya fariisanaya habeen barkii ka tagaya adduunka meel la kama hadal oral soo saay wali ma aragteen afar mid oo quraan joog gidaar iska fadhiya oo bilaa macna xagga noo socon maar سهل مركز صومالي نحب الفريسي كذا والله سؤال ولي قال لما أعرف هذا الأنهية هذا الأم مريك كور ما أعرف شو حاسك ولي قال من شن لو مريك لو بلا معلم الفريد ما أعرف شن جاي ليس ما أعرفين ولي قال ما أعرفين يا باكو ما كان عايبه ومثلا كسو هذا الفريد ذا بس لما بقولونين أو صار مال كسو الفريد ذا ولي قال أحكي لك مشي كيسانيا ضدك كشيكانيا حب لا يم الله فريق وكله ما أنا قبي تريم حكاك لا جيل كله qofka caafimaadka qaba ee Soomaaliga macal qaabka uma fikiro sababtoo ah qof walba wuxuu yaqaanaa ku dhufo ka dhaqaaq macal hadii aad caagid biyo ku cabayso Soomaali tahay meesha aad marisid bad ku tuuri taasina waxaanu baranay oo macnaha wadan walba qaabka uu dhisan yahay iyo qaabka uu dhaqmo ayaad baranaysaa maalin walba baro kaas inta Turkiga tagtay caaga tuur ma tuuri kartid Sacuudi Carabiya tago caaga tuur ma tuuri kartid macnaha adduunkan wadan walba sidoo u dhaqmo ay dadku la dhaqmaan marka waxa arkaysaa Soomaali ka imaaday wadamo kale oo wadamadan qurbaha imaaday oo kula caagada tuurin qalad waay laakiin wadanku u dhashay caagad baad jeedaaye lax dhimato ku dhex tuuraa wadada dhexdeeda marka ninkan isagoo xanuunsan qaabkan u hadlaya bal yara sawiro isagoo caafimaad qaba sidoo u hadli lahaa mid kale aan Cabdirasaaq waxaan jeclaan lahaaba wiilkan in aan 25 daqiiqo isla yara sheekaysano bal mana waxyaabo badan bad ka faa'iideysa sababtoo qaabka uu hadlaayo maaha qaabkii lagu yaqaanay dadka xanuunsanaya ama maaha qaabkii lagu yaqaanay ragga Soomaaliyeed ee da'diisa jira saa uma hadlaan waxay ka sheekayaan anaga madaxweynaha iyo waan sii soconaayo sanadkan dakhligu yaraa iyo maxagee la aadayayo madaxweynaha wali mu nool yahay iyo waxaas ma ka sheekayaan marka ninkan hadii aad u fiirsatid gibigiisu waa maskax socota isagoo xanuunsanaya marka wax walba sabab bay leedahay horta marka hore oo ducaynaa ilaahay wiilkan caafimaad ha siiyo marka labaadna waxaan la hadlayaa dadka commentiga iyo meelaha jooga ee ku qosqoslaaya in ay u baahan yihiin iyaga in lagu qoslo dadka qaar baa ninkan oo wax aad u muhiim ka hadlaya iska qoslaya marka aan muhiimadii waxa weeyaan horta wiilka hadii la caawin karayo oo meel la geyn karayo hal la geeyo laascaanood buu joogaa sida la sheegay hal la caawiyo hadii aan la caawin karin Soomaha qosolka ka daaya iyo fiidiyoosha la daba taagantii maanta oo dhan waad ku qoslaysaa hadii wax ka faa'iideysiis la gari laakiin ninka waad ku qoslaysaa waan duubaysaa marka aad ugu maasin daawasho video daawateen ha ilaawin hidiye dhaqanku waa like iyo share hana ilaawin maxaan adiga daawanaysid inay iga soo follow gareysid waa inoo video ga dabaa dulaa ilaado qayb baan ku rajeenaa